subax wanaagsan khiyaarteena kusoo dhawaada tabin kale wararkii ugu waaweynaa caalamka TV iyo waliba markaa xiisada bariga dhexe Israa'iil oo askartii ugu badnayd looga dilay gudaha jeeda Gaza. Fadeexad xoogan oo Trump haysatay kadib markii sirdoonka Mareykanka uu soo bandhigay cadeymo muujinaya inaan la burburin hubkii wax gumaadaya ee Iran iyo waliba markaasi mid ka mid ah meelihii ugu halista badnaa ee Fordo iyo waliba kuwa kale oo Nazan ay kamid tahay. Xogii ugu waaweynaa ayaa sidoo kale idin saacadihii ugu dambeeyay nin oo ka tirsanaa sarkaalka ama saraakiisha sarsare ee ilaalada kacaanka dalkaasi Iran oo kamid ah kuwii ugu sarreeyay oo Israa'iil ay sheegtay inay dishay oo beenowday markaasi. Kuwa iyo kuwa kale diradda ku saari doona isla markaana aan ku soo gudbin doona. Haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe saaro, sii share garee saaxiibadiina la wadaaga meel kasta oo aad joogtaana. Soo dhawaada. Aanu ku bilownay waa subaxnimo Arbaca 25 bisha June. Halkani waa Caalamka TV. Follow barteena, subscribe saaro, sii share garee. Soo dhawaada. ciidamada Israa'iiliyiinta ee ku sugan gudaha jeeda Gaza ayaa lagu soo waramayaa in 6 kamid ah askartoodii la dilay kadib markii dagaal adag ay ku dhex mareen dagaalyahanada Falastiiniyiinta koonfurta gudaha jeeda Gaza. Warbaahinta Israa'iiliyiintu waxay sheegeen 4 kamid ah askartoodii la dilay 17 kalena lagaga dhaawacay howlgal gaadma ah oo ay kala kulmeen dagaalyahanada Falastiiniyiinta markaasi. Xogaha ayaa waxay inta ku darayaan markii hore dhaawacan lagu sheegay 16 laakiin markii dambe la ogaaday ilaa 17 inay yihiin. Katiibada minooyinka ayaa waxay ahayd qayb loogu talagalay ciidamada militaarka gaaraan kuwa kumandoska gaarka ee minooyinka baara ee 605 ayaa iyagu ku sugnaa deegaanka Khan Yunis. Wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan ilaa iyo markaasi 7 ruux in markii hore la ogaaday qaarkoodna iyagu ay ahaayeen kuwa qarax ku gubtay oo markaasi ku basbeelay jirkooduna qaarkood wax laga dugo la waayay. howlgalkan ayaa markii dambe waxaa la arkay intii laga gaaray ciidamada in halkaasi laga soo qaaday isla markaan helikobtar halka looga qaaday kadibna la geeyay markaas bitalada loogu talagalay in lagu daweeyo ku yaala magaalada Tel Aviv. Jirada iyo diicood xaranood ee Israa'iil laga leeyahay waxay ku waramaysaa baaristii ugu horeysay in lagu ogaaday gaari nooca askarta qaada in gibi ahaanba isagu basbeelay halka lagu gubay. Sidoo kale saacado badan ayaa markaasi ay qaadatay in la ogaado askarta geeriyootay iyo garashadooda maadaama ay wada gubteen intooda badan. mar dambe ayaa dadka Falastiiniyiinta ee ku sugan deegaanadaasi waxay arkayeen helikobtaro kadib markii Israa'iiliyiintu gibi ahaanba goobta waxay ka dhaceen ay xireen. waana goobtaasi goob dagaal oo adag tahay Israa'iiliyiintu in loo dhawaado iyagoona toganaya cid kasta oo madani ah goobtaasi timaada. deegaanada Falastiiniyiinta ayaa la sheegay inaysan waxba soo gaarin isla markaana markii dambe goobta isaga baxeen. kooxda Hamas iyo waliba dagaalyahanada kale ee gudaha jeeda Gaza ayaa waqtiyadii ugu dambeeyay waxay wadeen olole ballaaran oo ay ku doonayaan in dagaalkooda ay ugu bedelaan mid ku dhufo ka dhaqaaqa isla markaana ay ku beegsanayaan ciidamada Israa'iiliyiintu ee ku sugan gudaha jeeda. intooda badan ciidamada Israa'iiliyiintu waxay hadafkoodu ka dhigtay markii hore in ay ka dhigaan ama ay kala gooyaan gudaha jeeda Gaza isla markaana aysan u ogolaanin in Falastiiniyiintu isdhexmaraan. waqtiyadii ugu dambeeyay waxay doonayeen in markaa ay isugu geeyaan bartamaha deegaanka loo yaqaan Mawasi iyo waliba kuwa kale lamid ah iyagoona doonaya in ay sameeyaan deegaan ka caagan dadka oo ay ka dhex sameeyaan gudaha jeeda Gaza bedelkeeda intii hore iyagu ay uga sameeyeen daboolka Gaza. laakiin halkaas waxaa la tilmaamayaa in iskoorimaadyo maalinlaha ay ku dhex maraan iyadoona markaa khasaare fara badan halkaasi ay ka dhashaan. wararka ka imanaya gudaha jeeda Gaza ayaa sidoo kale la tilmaamaya in ka badan 25 ruux inay ku geeriyoodeen saacadihii ugu dambeeyay duqeymihii halkaasi ka dhacay iyadoona aroornimadii Arbacada la tilmaamayo inay jireen dad fara badan oo sugaya caawimaad isla markaana doonayay eheladoodu inay u helaan waxay cunaan. telefishinka Al-Aqsa ayaa waxa uu ku waramayaa diyaaradaha dagaalka in iyagu ay duqeeyeen teendooyin ka samaysan baco iyo cooshado oo markaasi la tilmaamayo dad inay deganaayeen u badnaa haween iyo caruur. 3 ruux oo Falastiiniyiin ayaa la sheegay inay ku geeriyoodeen wadada loo yaqaano Al-Mansuur ee shaarica ama wadada xaafadda Shujaaciya. wararka ayaa waxay inta ku darayaan in deegaanadaasi ay yihiin kuwa kamid ah kuwa aan saaranayn waliba ka tirsan mukhayamka Nusayraad loo yaqaano. 5 ruux ayaa la sheegay in halka iyagu sidoo kale ku geeriyoodeen oo ay ku jiraan haween iyo caruur iyadoona markaasi masjidka Salaam loo yaqaano ee Derbalax halkaasi sidoo kale ay ka dhaceen khasaaro aad u ballaaran. qadka telefoonka ay ku wada hadleen Netanyahu iyo waliba Trump madaxweynaha dalka Mareykanka. labada mas'uul ayaa la sheegay in waqti dheer ay ka wada hadleen kadib markii xabadda la joojiyay. Trump
ayaa la tilmaamaya in khadka telefoonka isagu si weyn uga carooday hadal hore uga soo yeeray Netanyahu iyadoona la arkayay in labaduba Iiraaniyiinta Israa'iil uu ku eedeeyay in xabaddu ay jibiyeen isagoo tilmaamayay in isagu kalmaday ka dhacday kadibna iyagu ay jibiyeen. Tirada Telegraph ee Britain ayaa waxay ku waramaysaa in si adag Trump uu la dardaarmay maadaama la galay heshiiska inuusan jibin karin. Ninkan ayaa waqtiyadii ugu dambeeyay waxa uu isagu doonayay inuu soo muujiyo inuu yahay nin nabadeed si uu ugu guuleysto abaalmarinta caalamiga ah ee Nobel Peace Prize ama abaalmarinta markaasi nabadda ee lagu bixiyo bilada dahabiga ee marka Nobel Peace. Haddaba miyuu ku guuleysan doonaa waqtiga baa noo sheegi doona, laakiin haddii aanu eegno magaalada Tehran ee wadankaasi Iran waxa lagu soo waramayaa inuu soo muuqday hogaamiyihii kooxda Fayluul Quds loo yaqaano ee ka tirsanaa ilaalada kacaanka dalkaasi Iran, Ismaaciil Qaani. Ninkan ayaa la arkay isaga oo markaasi dabaaldegyo si weyn markaasi uga soo muuqanaya isla markaana ku sugnaa magaalada Tehran. Ninkan ay Israel sheegtay inay dishay isla markaana ay tilmaantay inuu ka mid ahaa saraakiishii lagu dilay gudaha dalkaasi Iran isla markaana dhowr iyo 10 sarkaal ay markaa dileen kadib markii Mossadku iyo waliba sirdoonka Israa'iiliyiintu ay ku beereen dad basaasiin ah oo Iiraaniyiin iyo waliba ajnabi isugu jiray. isla markaana wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan saacadii la soo dhaafay ilaa iyo 600 oo ruux inay ahaayeen dadkii lagu qabqabtay marka magaalada Tehran iyo waliba magaalooyin kale oo dalkaasi Iran ah. waxaana la doonayaa dadkaasi in maxkamad la soo taago, qaarkoodna la daldalo. waxa bilaabatay oo la ballaaran oo la doonayo in lagu nadiifiyo gudaha markaasi Iran. ujeedaduna ay tahay in gebi ahaanba la waayo basaas bixinaya sirta dowladda wadankaasi Iran. wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan in hogaamiyahan kacaanka markii hore la sheegay in lagu dilay dalka Lebanon, laakiin ay beenowday toddobaad ka hor ayay ahayd markii Israel ay sheegtay ninkan inay dileen ama ugu yaraan mas'uuliyiin ka tirsan laga soo xigtay, laakiin waxaa beenowday in gebi ahaanba markaasi la dilay. markaa ninkan isla markaan shalay tolo ayuu soo muuqday. wararka ka imanaya dalkaasi Mareykankana waxaa si rasmi ah loo ogaaday in Iran aan laga burburin gebi ahaanba uraniumteedii iyo waliba hubkeedii ay haysatay ama ugu yaraan barnaamijkeeda caalamiga ee nuclearka. ila sirdoon ee laga helayo sirdoonka Mareykanka ee dalkaasi ayaa waxa uu si cad u sheegay in gebi ahaanba aan la burburin barnaamijkii nuclearka ee dowladda Iran, laakiin dhowr bilood dib loo dhigay. waxa uu tani markaa ku tilmaamay dhowr bilood haddii u baahato Iran in dib ay markaasi hubka nuclearka u samaysan karto, waaba haddii hore u samaysatay. laakiin wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan in Trump isagu dhoolatus ay ka ahayd isla markaana danihiisa shakhsiga ayaa lagu sheegay in ujeedadu ay ahayd, laakiin baaristii ugu horeysay ee la sameeyay ayaa la ogaaday in gebi ahaanba aysan jirin burbur ballaaran ama xitaa dhismaha ama qalabkii casriga ahaa ee markaasi wax fududeynayay in aan gebi ahaanba la burburin. lama garanayo tallaabadaasi sirdoonku Trump waxay ka yeeli doonto, laakiin dhaawac weyn ay gaarsiin doontaa marka la eego sirdoonkii ugu sarreeyay dalka in uu ku dhawaaqo war lidi ku ah marka la eego Trump. wararka qaar waxay tilmaamayeen Trump in ay tani markaasi mustaqbalkii saameyn ku yeelan karto, laakiin cabsi badan ma qabo ninka sababtoo ah labada gole iyaga ayaa ku fadhiya Congress-ka, xilkana kama qaadayaan nin jamhuuri ah sababtoo ah labada gole shuyuukhda iyo waliba markaasi Congress-kuba iyaga ayaa haysta waa xisbiga jamhuuriga markaasi. sidaas daraadeed tabar badan iyo taag badan laguma oga dimuqraadigu inay meelaha iyagu ka hadlaan oo ka qayliyaan mooyaane tabar kale ma hayaan. laakiin gulweyn ay u tahay Iran inaan la burburin hubkeedii iyo tallaabadan hadda soo baxday. tabinteenu waa naga intaa.